inaad dhanka wanaagsan wax ka eegtaa micnaheedu ma ahan oo kaliya inaad mar walba faraxsanaato sidoo kale waa inaad garato waqtiyada adag inay jiraan maalmo wacan oo ka dambeeya waad gaari doontaa waxa aad ku haminaysid oo wanaag u horseedahaya naftaada maraadkaa dhidba ha dheeraato ama ha dhawaato qiimaha ay naftaada ku yeelanayso bulshada dhexdeeda adiga ayaa iska leh haddaad isku aragto qof liito oo aan waxba qaban karin xaqiiqada qof liita ayaad noqonaysaa haddiise aad isku aragto qof wax qaban kara waad qabanaysaa weliba sida ugu wanaagsan laba mid un kala dooro inaad adigu naftaada silsilad ku xidhid oo aad la hadhin ama inaad naftaada aaminto inay wax tari karto oo aad horumar gaadhin ku dadaal wixii qiimo kuu samaynahaya allana kaalmayso hana caajisin oo ha isdhiibin samirkana badi qadarkana rumaysnow horay u soco sidii diinkaba aad u socotide xitaa haddii aad doonto 10 kun oo jeer kuul darrayso laakiin ha niyad jabin maalin unbaad arki doontaa adigoo bulshada ka dhex iftiimahaya ruuxa kartida badani waxa uu ka khayr badan yahay ruuxa awooddiisa aamini waaya uma noole inaan qof kasta farxad geliyo waxba igama gelin waxa qof kasta iga malaysto shalay way tagtay wanaag iyo xumaanba barina lama gaarin mar walba maanta ku noolow intaa doonto mar unbaad dhiman doontaa u noolow maalin kasta sidii inay tahay daqiiqadii dunida kuugu dambaysay noloshaada quruxdeeda waxaa saldhig u ah hadba sidii aad u faraxsan tahay farxaddana waa midaad adigu abuuran karto haddii aad doontid inaad farxad ku noolaato hafaaleyn waqtiyadii xumaa ee noloshaada soo maray hana ka sii warwarin waxa aad bari la kulmi doontid ee faaleyn nicmada aad maanta haysato oo ilaahay ku mahadnaq markaas ayaad farxad dareemi doontaa ka fogow dadku maxay oran doonaan maxaa yeelay waxay dishaa himilooyinka nolosha haddii aad waxqabadkaaga ku xidho waxa ay dadku ka oran doonaan waxba xaqiijin maysin maxaa yeelay xitaa waxa ay qurux u tahay dadku isku soo ma arkaan